walaal maxsan tahay wasiirku wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha uu ahaa ee Jubbaland wuxuuna arkay inaysan dan ku jirin inuu dadkiisa iyo deegaankiisa ka dhaxbaxa maradii jawlgoleedkii asbaa ee Jubbaland ay dhacday wuxuu gartay in waxaan ku raadaa wax dan aysan ku jirin in xuduud kale iyo Madeira iyo la taagnaada dadkiisa iyo dawladdiisa uu soo raacay goorma wasiirkan isku soo dhiibay dhanka dawladda walaal ma xagarta uu imaaday bariyaan xiriirka ugu jiray waxaan u sheegnaa in dadka loo geeyay dadkiisa uu ka mid yahay shacabkiisa ay jecel yihiin dad kasta oo shacabka iyo dawladda soo raacay dad u dhameysay inaysan jirin qofka dambiile ee meesheeda marka dadkiisa uu soo raacay waan u sheegnay waan u imaaday xagee buu iska soo dhiibay walaal Madeira dhaxdeeda joogay ayaan dawladda waqtay ciidanka ku dhex joogay gudaha Madeira dagaalkii ku ka dhacayna waxay sii carreen meel Madeira u jirtay ilaa 10 kiiloomitir gudaha kor u sii jirta hadda halka ileedo ku sugnaa uu ka soo baxay maanta uu ka soo baxay ilaa xal wala xiriirinay uu imaad hadda wuxuu la joogaa gudaha Soomaaliya maxaa ku raadaya degmada Dolow waxaad ii sheegtaa wasiirka yaa la socday oo xubna ka mid ah maamulka madaxweyne Madoobe wala kaligi waxa hadda cid israaci Soomaaliya ka hadal isma aaminaya dadka waxa waalideynaya xaraweyn oo kiyaati ay ku jiraan waxa uu soo bixi kale oo kaliya qofkii yiraahdaa magaaladan daawo ka soo qaadanayo magaaladan aad iyo qofkii baa soo bixi kara waaya marka wixii soo aadi toos oo soo baxay warar qaar oo aanu helno waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada sida gaarka uga amar qaata wasiirka amniga Jubbaland oo tiradooda lagu sheegay 3 sargaal ay la socdeen wararka maxaa ka jiro ma way ka soo horeeyeen kuwaas waxay imaadeen saaki 3 saac ay imaadeen 4 sargaal oo wasiirka maxaan ku raadaan ninka taga odayga uu ahayd staff qaas oo aan jirtay iyo 6 askari oo kale ciidanka taga 10 kaas saaki 3 saac markay imaadeen barihaan oo dhan xiriir lagu jiray ilaa 10 kaas askari way joogaan hadda 4 ay saraakiishii ninka odayga ka amar qaadanayay ma waxaa jiro wax askar oo ilaalinayo la socdo wasiirka ma staff muusan wadin kaligiisu ahaa marka gudaha Kenya soo galay kadibna anagu horna ugu soo dhaafay awal gudaha Kenya dhex joogay marka hore sad ogtahay meel Kenya 10 kiiloomitir xagga ka jirtay joogaan nimankan magaalada Kenya soo galay toos buu soo gudbay xadka Kenya Soomaaliya ku kala baxaan anaga u istaagnay haddana wuxuu ku jiraa gudaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaad ii sheegtaa wasiirku halkuu ku sugan yahay iyo bal waxa laga yeelayo wala wasiirka uu ku sugan yahay wuxuu joogaa Abdiraxmaan wuxuu joogaa meesha Dolow wuxuuna la joogaa mas'uuliyadda maxaa ku raadaan gobolka wuxuuna ka mid yahay dadkiisa Soomaaliyeed ee halkan jooga kulay maxaa ku raadaan waxa dhibaato oo gaar ah asaga lagu ceyrsanayna ma jiraan marka insha Allah ta'ala haddana wuxuu la joogaa dawladdiisa Soomaaliyeed inuu soo raacana danta ku jirta cid kasta oo soo raacdana cid wax u dhamayso ma jirto wasiir Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa xubnaha aadka ugu firfircoon maamulka madaxweyne Madoobe wuxuuna maalmihii dambe eedan u jeedinayay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee arrimaha siyaasadda maamulka Jubbaland warar hoos soo baxaya ayaa sheegay in la keenay magaalada Muqdisho wasiirka isla mar ahaantan ay jiraan xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo kulamo siyaasadeed uu la qaadanayo wararka maxaa noo sheegi kartaa wala qaadan kara wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliyeed qof maskax leh oo wax garanaya ma joogi kara maxaan ku raadaa gudaha Kenya ragaan maxaan ku raaddaa wuxuu ahaa wasiirka hore Jubbaland waqtigeeda uu dhacay Jubbaland asubna lama dhisin cid maskax leh oo maanta Madeira iyo dhex taagnaan karta meel dawladda Soomaaliya ka baxsan ma jirto kulay dadkiisu soo dhaxgalaya ninkan xamarna uu imaanaya meel kasta uu taagay cid hadda hortaagan oo gaar ma jirto dadkiisa Soomaaliyeed iyo shacabkiisa inuu raaco fikirkiisana cadeynta oo bay noqon doontaa kulay insha Allah fikirkiisana waa cadyahay wuuna noo yimaado wuuna noo cadeeyay meesha qof Soomaaliyeed oo maskaxiisa kar leh oo jooga kara ma jirto yiri ana waxaan soo raacay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed Jubbaland cusub laga siiyana shacabkiigaas iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaan ka mid ahay bal si guud iyo sawir bal xaaladda guud ee gobolka maadaama maalmihii dambe colad ay ka taagneed colada dadka guud ahaan gobolka waa nabadgelyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa jooga shacabka Soomaaliyeedna si buuxda ay u shaqeynayaan wax dhibaato jira ma jiraan magaalada Buulaxa barakac baa ka socday inta u dhaxaysa Mandheera oo dadku ay ku dhibtoodeen kadib markii dagaal uu ka dhacay shacabkii deegaanka barakacay oo dagaalkii ka barakacay iyagu iyo war xaaladooda walaalaha ma santahay shacabka Soomaaliyeed kulli waxa garab taagan dawladda Soomaaliya
barakac saa u weyn oo haddii hadda ka dhacay maysan jirin maalin hore oo xabadihii hore ay dhacayeen meelihii dagaalku ka dhacay waa laga guuri shacabkiina hadda degmadiisa nabadgelyo ayuu kusoo noqday kole insha allahu dowladda soomaaliyana in ay soo garab istaagtay aad baan u jecelnahay shacabkaas maxaan ku dhahdaa wayna garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed insha allahu anagana ka maamul ahaan shacabka waan garab taagannahay shacabkana ayagaa raba in laga dulqaado culayska haya iyo dadka dhibaataynaya oo mas-uuliyadda jubbaland sheeganaya. Waxaynu ogeen in gobolka dagaal uu ka dhacay gaar ahaan magaalada Beled Xaawo shacab dushooda lagu dagaalamay waxaa suuragal ah in mar kale dagaalku u dhaco ay soo rogaal celiyaan ciidamada wasiirka amniga Jubbaland ama idinku weerar aad qaadaan maxaa u nolol ah shacabka ku nool magaalada Beled Xaawo ee aad ku dul dagaalamaysan walaalahay wax dhibaato ma jiraan alla weerarayna ma jiraan ciidankan hadda la diray oo maalintii barada noqday oo gudaha Kenya galay inta badan way soo dhiyay maalintii uu dagaalka dhacay hadda ka dhaxaysa ciidamada imaanay waxay leeyihiin ilaa 40 askari way leeyihiin wayna soo socdaan xiriir bay ku jiraan waan arkaysaa mas-uuliyiintii sare ee Jubbaland hore ayaa hadda maxaa ku dhahay dowladda u imaanaysa marka wax dhibaato dhacay ma jiraan ciidankaas gudaha Kenya ku jiraan inay imaadaanna waa jecelnahay insha Allah shacabka Soomaaliyeedna wax dhib ay arkayaan ma jiraan bulshada Soomaaliyeed waxaa garab taagan shacab kasta dowladda Soomaaliyeed.